waxay u ordaan medicine aan waxa ka doorbiday inaan mustaqbalka noqdo injineeriyad waxaan rajaynayaa mustaqbalka gabdho badan inay ugu soo dayadaan shaqadan aad u fududahay easy waa wax walba baranaysin waxay ku xiran tahay karti awleeda iyo awoodda iyo ina u dhiirigelinaad ina ku dhiirigelinaad ina waxaad qaban kartid hadda ku dhiiranta ina waxaad qaban kartid wax walba easy waa soo bi kartaa aan filan waalidiinta gabdhaha interest ma siiyaan hadii wax bartay hadii kale waa la wadanaya isleeyihiin balse waalidiintana waxaan ku boori lahaa gabdhaha inay garab u noqdaan meel wiil mari karo gabar mari kartaa wiilasha aqoon inaad tartamo jecel hadda waa la tartamayo meesha waxay ka qabtaan in ka badan qabtaa wiilasha gabdhahan waxa aad u shaqeyn og gabdhaha aad u faraxsana inay ku dhiiradaan shaqadan sii wado insha Allah waxaan rajaynayaa inaan guul ka gaaro gabdho badan ay ugu dayo doonaan gabar hadda wax barato bulsho wax barato waa wiil waa ka waranta gabadha kamalidatu wiilasha maanta ay iskuulka wax baranayaan boqolkiiba waxaan isdhihi karaa boqol waxay wiil oo qabta iyadan waa ku dadaasha inay qabto hamin waa leedahay niyana waa leedahay taasoo ah muhiimadda koowaad qofka inuu niyo la yimaado waa leedahay way qabataa mutunaalka waa dhigi kartaa dhagaxad waa aragta waa dhigaysaa bulketig waa dhigaysaa waxyaaba fara badan way ka jireen gabdho engineering way jireen gabdho duulayaal ay way jireen gabdho dhaqaatiir ay way jireen gabdho oo waxa jira ifan xataa oo commandos ay way jireen oo dhan walba way lahaayeen laakiin burburkii kadib xogaa waa yaraatay in gabdhii xogaa yar waxaad moodaa in cadifad iyo dhinac loo sii buusaayo way yareed waagii hore laakiin hadda waxaan jecelnahay sidii waagii hore ka wanaagsan inaan ku soo celino gabdho injineeriyaal ah ilaa haddana ma arkin ani hadday leeyihiin waa faraha lagu tiri karaa aad u yeelyihiin dad badanna way la yaaban yihiin gabarna macquul maahan way aamini lahayn mustaqbalkan waa guulka gaaray aamini doonaan farsamada badata dalka horumar u noqotaa gabdhaha waa bulsho waa nolosheena barkeed marka lagama maarmi karo in gabdhaheen maanta aan wax barno on maadaama aan burbur fara badan iyo dhibaatooyin fara badan aan soo marnay si aan beri maanta wiilasheen iyo gabdhaheen aan isku dubnaan oo wax u qaban karno waddankeena aan u dhisan karno taasoo macnaheedu ay tahay in aan helno jiil cusub oo kaga maarmi karno macnaha dadka ajaanibta oo waddanka kaga imaanaya si aan u helno arday skills ah macnaha xirfadaysan dhan walba ka dhisan beri waddankiisa wax u qaban kara hooyadii waalidiintiisa wax u qaban kara wallahi waxaan kala ku darsan lahaa in aan ku dadaalno haddaan Soomaaliland inaan ku dadaalno waxbarashada inaan isku dubnaano inaan noqon dad jecel si waddankeena beri annaga iyo macal waddankeenaba aan wax aga helno wax u noo taraan insha Allah taala iyo jiilka naga dambeeya